hay'adaha kala duwan ee sirdoonka iyo mukhaabaraadka dalka Mareykanka ayaa warbixin ay soo saareen waxay ku sheegeen in ciidamada Israa'iil ay awoodi waayeen inay military ahaan ka adkaadaan dagaalyahanada Xamaas ee ka howlgala marinka Gaza ee dalka Falastiin. sida uu maanta baahiyay wargeyska The Wall Street Journal ee ka soo baxa dalka Mareykanku waxa kale oo ay hay'adaha sirdoonka Mareykanku sheegeen in aanu ilaa hadda hirgelin yoolkii ugu muhiimsanaa dagaalka ee Israa'iil ka wado marinka Gaza ee ahaa inay wiiqdo isla markaana ay tirtirto dagaalyahanada Xamaas iyo madaxdoodaba. waxaana warbixintan lagu sheegay in dagaalka Gaza ay Israa'iil ku dishay qiyaas ahaan 20% ilaa 30 dagaalyahanada Xamaas, taasoo ka dhigan in aanay wax dhibaato ah soo gaarin 80% ciidamada Xamaas iyo madaxdooda, taasoo muujinaysa in muddada 107 maalmood ee Israa'iil dagaalka kula jirtay ay ku fashilantay inay guul la taaban karo ka gaadho dagaalka Gaza kadib markii ay iska caabin xoogan oo aanay hore u filahayn kala kulantay dagaalyahanada Xamaas. waxaa kale oo warbixintan ka soo baxday hay'adaha sirdoonka iyo mukhaadaraadka Mareykanka lagu sheegay in Xamaas ay haysato hub iyo rasaas ay muddo kale oo dheer ku sii wadi karto dagaalka ay kula jirto Israa'iil, iyadoo sidoo kalena ay Xamaas awood u leedahay inay gacanta ku sii hayso maamulkeeda marinka Gaza, isla markaana aanay Israa'iil ilaa hadda awoodin inay Xamaas ka xoreyso Gaza. wasiirro iyo siyaasiyiin reer Israa'iil ayaa dhowr jeer hore qirtay inay awoodi waayeen inay ka adkaadaan Xamaas iyo dagaalyahanadeeda kala duwan, iyadoo aan laga midho dhalin karin yoolkii Israa'iil ee ahaa inay meesha ka saaraan dagaalyahanada Gaza. balse hadda waxaa muuqata in cidda qura ee khasaaraha ugu badani uu ka soo gaaray dagaalka Gaza ay yihiin Israa'iil iyo dadka rayidka ee aan hubaysnayn. geesta kale war kale oo maanta ka soo baxay militariga Israa'iil laguna faafiyay telefishinka Israa'iil laga leeyahay ee Channel 12 ayaa lagu sheegay in dad aad u badan oo shicib ah ay ku biiraan Xamaas tan iyo wixii ka dambeeyay 7 Oktoobar ee sanadkii hore 2023 oo ahaa markii uu bilaabmay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas. waxaana militariga Yuhuudda uu tilmaamay in Xamaas iyo dagaalyahanadeedu ay ka awood badan yihiin kana tiro badan yihiin sidii markii hore ay filanayeen. waxa kale oo militariga Israa'iil ay ogaadeen in aanay sinaba suurtagal u ahayn xilligan in awood militari lagu soo furto maxaabiista reer Israa'iil ee gacanta ugu jira Xamaas. sida uu faafiyay telefishinka Channel 12 waxay militariga Israa'iil tilmaameen in xeeladaha ay Xamaas adeegsanayso ay ah inay kooxo yaryar isku qaybiyaan kadibna dagaal ku dhufo ka dhaqaaqa ku qaadan ciidamada Israa'iil ay keentay in aan laga adkaan karin Xamaas. dagaalka Gaza muddada uu socday waxa ciidamada Israa'iil ay qirteen inay kaga dhinteen in ka badan 530 askari halka tiro kale oo ka badan 2,000 askarina ay kaga dhaawacmeen. balse warbaahinta Israa'iil iyo bahda caafimaadka Israa'iil ayaa sheegay in Israa'iil ka qarinayso khasaaraha dhabta ah ee ka soo gaaray dagaalka Gaza, iyadoo askarta iyo saraakiisha laga dilay ay aad uga badan yihiin inta ay qirteen. sidoo kale waxa dagaalka Gaza ee Israa'iil ku xasuuqday in ka badan 25,000 oo qof oo Falastiiniyiin oo badankoodu dumar iyo carruur ah, halka dhaawacyaduna ay ka badan yihiin 62,000 oo qof. Ismaaciil Cabdi Xasan, Saab TV. maasha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. maxmil waxay ku diyaarisay adeegga internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarle ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska. haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121